annaga dagaalkan mugaan bilaabayna qabiil ahaan waa iswarsanna waxaan go'aansannay laba qodob mid annaga in tolkaynu loo imaanahaan ogayn islaam wixii sheegto jirkoodu nuuxsanaahoo damiirlahu inay loo imaanahaan ogayn dadka loogu dhowoo deegan ahaanna loogu dhow dad ahaanna loogu dhow in lagu soo hormaraanaan ogayn inaan ka adkaanaynana waa hubay walaalayaal annaga haddaan nahay qoladan gobolka hiiraan dagaalka ka bilowday oo dagaalka ku jiray maantaan ugu farxad badan nahay intaan hawshaan ku soo jirnay sababtu waxay tahay hawsha waa bilownay markaan bilaabaynana wuxuu yidhi nimaa hadda ka hor ceeldheere meel la yidhaha laga soo qofaalo qoladan abgaalaa la yidhi dawlad maxamed siyaad barre marka buuqa qablaa la geeyo waa iyadoo sidii loogu tababara waana qafaal aa la yidhi bugii loo qudbaynayo sidaanoo kale iyadoo loo qudbaynayo askartii lubowga la baraarujinaha wuu yidhi cadabaa dalka qabsaday in laga difaaca la rabaa in amxaarad dalka laga celiyaa la rabaa etoobiya dalka qabsani waxaas uu sargaalkiibu qudbaynaya yidhi mogta aan ritiyaan ilma uu soo dhaashay beerna faliday iga rabtee aniga cadow maxaan u celaa maxaa la iskugu dulmaay minaa lagu aadino maxaa loo dulmaay minaa lagu aadi macnaha laygu tashaay marka hadda annaga shabaab waxaan go'aansannay in soomaaliya iyo shabaab aan ogaanay soomaaliya iyo shabaab inay dalkaan uun isla qaado shabaab dawlad soomaaliyeed ma ongola diinta islaamka ma ongola qof kastoo islaama xuquuqdeeda ma ongola dhiigga islaamkana waa bannaystay xaqoodana waa bannaystay saqiir iyo kabiirna waa dila ilmihii waa arkayseen teendhada lagu aruurinayo hilbahooda waxay leekaayeen annaga marka ilaahaa lagu hanuuniyey waxaan go'aansannay inaan soomaaliya iyo shabaab dalkaanu isla qaadin markaan xabadda ku bilaabaynana isma lahayn keligiina aad iyad foodda ku diirtiin aad ka adkaanaydiin laakiin waa qabyaynaysin aan islahayn oo yaan ku talagelaynay kuwii horay loogu yimid iyo kuwa maanta loo yimid iyo kuwa dambe oo imaan doona waxaanan aaminsanahay inaan ka adkaanayno waayo ayagu waa dad laysku keekeenay wax diinahay ku dirirayaan oo ilaahay og yahay iyo wax dalahay ku dirirayaanay leeyihiin iyo wax dawladnimahay ku dirirayaan oo dadkaan u wakiisheen midna ma jirto dulmilooshin diinta islaamkana ku tumana dadka islaamkaa xaquuqdiisana ku dumana oo xaqiisa booba dhiiggiisana ku joor falaawa sidaas daraaddeed marka qof kastoo la dirira way culummadu loo sheegtay haddii ay ku dilaanna inaad ilaahay janno ku gelina waa sheegeen culummadii waana joogtaa haddaad dishana in ilaahay janno ku gelina annagaa ilaaha lagu xukumay inaan dhimanayno in la dhimana waa caddahay mar haddaan dhimanayno marka walaxaban hadday la dilaanna janno aan gelayno haddaan dilnana aan janno ku gelayno waxa ka fiican oo la qaba lahay xiyir waxa ka fiican oo la qaba lahay ma jiraan waxa ka fiican oo la qaba lahay ma jiraan qof kasta oo soomaaliyeed ama islaama oo nimankaas la dirirtana ilaaha faradu fura haddii waqtigeedu galay dhimatana ilaaha aa janno gelina haddii ilaahay ka badbaadiyana sharafay ku noolaani